diin ma ku dhaqmanaa anigu I will say no ورحسنا aniga saaxiibkay Faisal diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo دول كم با إلهي لشرع قديدني أفي قلوبهم مرض مقلبك كبكا أم ارتابوا مسوي شكسني أم يخافون أن يحرف الله عليهم ورسوله مسوي كعب سنيانين إلهي رسول كيس عدالة بينك روايات إلهي بسؤالها إنا ويديني ولا ضلدينا شرع قديدنو مي قلبك كبكتان مدين تنبيدا رميسنين مسبا إلهي لي وحا كعب سقبتانين إلهي عدالة بينك روايات بل أولئك هم الظالمون با إلهي انت من دمجت إلهي وحلاي أولئك هم الظالمون وأدول ربين الدول السمعية إسلامك لكن لا يوجد بي أنا أركتي ده وعلى وجود بمركز أدون هشيس عالمي كجرو نظام دولي أو كجرو أدونك حكبح عليها دار حرب إدار كفر أما دار إسلام إدار كفر أدونك سوا كبح هذا بكاس معاهدات دولية مواثيق دولية ذاتك سميستين أدونك أو نبوه الشيء هشيس عالمي على الجري أو نبوه الشيء واحد دولة كستر إيلادا يحد كذا واحد أوياه مركا إن أنت اللي بدله قدال لا عليو ما تشيروا إلهي كتاب كيس وحلا كلا صعول إذا أنت أنا إني عصر جنوسو بنتام إن لقى طابي مضمت أنت سنين لقطه إلهي كتاب كيس هو كتاب كيس ودتشي آيات كل سيدا وحب ورسوم بكل دقالها جرس سيدا وهجاج ورايات القرآن كوجود در متقاني وحي كهذلش قضية الاقتصاد بكهذلش آيات القرآن كوجود ترى بضله في سورة البقرة آيات وجود در قرآنكو وحي كور رميس الدين تيسير الله كلا قاطه إلهي وحلي الدين تمرك كلا قاطه إنسان قرآن سماية وأنت هو حشتي بساعة كلا دقاقينه وحنا نكسب لنا قرآن سميسانا وحكنا وقص عدم حي نظام يا مامور يعني وحنا آيات دي قرآن كوجود والله نيدا وجود دريد ما وحي كور رميس قضية الاقتصاد مع آيات الطلاق يسواج كسره مريء آيات دقن maxaa keenay midna inay diinta lagu daro hadaad aragto maanta nin gabadhaan sharciga islaamiga ku mehersan waliga kaaga dhaadhicmaysa ninkaas gabadha uu qaba way waxa kugu qafilan qofka aan shariicada wax ku mehersan inay wixiisu sax ahayn ilaahay kitaabkiisa ka aragto waad rumaysantay marka ku marimayso laakiin markaad aragto ka ribo ku dhaqmaya ama kacayga ku dhaqmaya ciidaba kuma tusin taasi iyo waxaad iska moodaysaa waa arrin yar oo iyadu iska fududo markii la doonana laga yara talaabsan karo markii la doonana la sameyn karo mushkiladda maxaa inagu abuuray waxa inagu abuuray reer galbeed maalintuu yimi caalamul islaami uu gumaystay shay quru ku dadaalay inuu sharciga dhaqanka ka saaro dabeetana indial binal code iyo qaanuunkiisa inuu keeno laakiin dadka weligii uma diidin in masaajida la galo waayo wuxuu isiri xagga way kici doonaan haddaad gasho markaa masaajida ha iska galaan dumarka say doonayaan ha u guursadaan ha dhaxladaan laakiin maamulka ayay soo hadal qaadeen maamulku in ilaahay loo hogaamiyo taasi meesha yuu imanay gaalku wuxuu burburiyey waxay ahayd alkhilaafa alislaamiya taasi buu ku guulaystay ilaa haddana guushiisii wuu sitaa oo gaalkii hore markuu tagunba gaalka loo madoobi ku